gabadhan yar waxay leedahay hooyo aad u ilaalin badan taas oo mar walba sida diyaarad qumaatiga u kacda hawada ka soo raacda meel kasta oo ay gabadhu aadona kama harto xitaa marka ay gabadhu isku daydo inay cunto macmacaan ay jeceshahay hooyadeed ayaa si degdeg ah uga dafaysa waxayna ugu beddelaysaa khudaar aysan gabadhu jeclayn marka ay casharada xisaabta ku wareerto hooyadeed ayaa daaqada uga soo dhiibaysa qalabka xisaabta fursadna uma siinayso inay iyadu dadaasho ciyaarta xitaa dadan uma laha marka ay kubadda koleyga ciyaarayso hooyadeed ayaa kor u qaadaysa si ay goolka u dhaliso taas oo meesha ka saaraysa farxaddii ciyaarta xaaladdu waxay gaartay heer tijaabo saynis oo fudud darteed ay hooyadu ku qasabto gabadheeda inay xirato weji-xiraha sunta oo aad u weyn gabadhii ugu dambayntii way u dulqaadan weyday caburintaas gabadhii way carartay si ay geed gadaashiis ugu dhuumato laakiin hooyadii oo soo eryanaysa ayaa si lama filaan ah ugu dhacday geedkii qalabkii ay ku duulaysayna wuxuu ku dhex xayirmay laamaha hooyadii waxay ku noqotay meel sare oo ay ka soo degi weyday gabadhii markii ay aragtay hooyadeed oo dhibaataysan inkastoo ay ka cararaysay haddana waxay go'aansatay inay badbaadiso waxay bilowday inay geedka korto balse hooyadii ayaa aad uga walwashay in gabadhu soo dhacdo nasiib darro laantii ay gabadhu ku taagnayd ayaa jabtay taas oo naxdin ku beertay hooyada balse gabadhii si geesinimo leh ayay u qabsatay laan kale oo badbaaday markaas ayay hooyadu garwaaqsatay in gabadheedu ay weynaatay oo ay xalin karto dhibaatooyinka soo wajaha hooyadii waxay iska furtay suunkii diyaaradda waxayna si kalsooni leh ugu soo booday gacmaha gabadheeda iyadoo markan aaminsan awoodda inanteeda si farxad leh ayay isugu duubeen hooyadiina waxay halkaas ku qaadatay go'aan ah inay gabadheeda siiso xorriyad iyo fursad ay nolosheeda si madax bannaan ugu maaraysato